بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الحديث 412 عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية. رواه الترمذي وأبو داود بن ماجه، والحديث صحيح. إخوة الإسلام والإيمان، maanta taariikhda islaamka ay tahay 24 bishii afraad rabiicu thani sanadka 1442, islamarkaana waafaqsan 9 bishii 12 sanadka 2020. waxaanu ku jiray mawduuceeni qiimaha badnaa aada iyo aada khatarta u ahaa ee ku saabsanaa khuduurada khatarta ahaa ee ku saabsanaa aklu maal ilxaraam, xaaraamta oo la cuno iyo dhibaatada ay leedahay iyo saameynta fardiga iyo mujtamacaba ay ku yeelanayso. intayna dersiga bilaabin, waxaan jeclaan lahaa inaan saxo. shalay taariikhda ayaanu wax ka khaladnay, taariikhda miilaadiga. midda islaamka shalay 23 bay ahayd, ta miilaadigana 8 bay ahayd, laakiin bisha 8dii bishii 12aad meeshaan ka dhihi lahayn ayaa waxaan idhi 8dii bishii 6aad. marka waa sabq maarata lisaan weeyaan, walaalaha qaar ka midana wayba maaragtay iisoo qoreen, laakiin waan ku baraarugay aniga markaan dib aan arrintii u dhageystay. marka insha allahu tacala intaa waa sabqu lisaan la socdo. marka maanta waa taarikhdu waa 9 bishii 12aad weye. intaa markaan ka baxo, mawduuceeni ahamiyadda lahaa ee runtii aada iyo aada khatarta u ahaa ee ku saabsanaa aathaarta ay leedahay maal xaraama cunitaankii shaksiga iyo mujtamaca ay u leedahay. ilaa waxaan kasoo hadalnay hadda 2 qodob. uu leeyahay aathaartiisa waxaa ka mid a inuu qofku sabab u noqon karo, macnaa xaaraamtu cunay hadduusa toobad keenin naar inuu ku galo. waxaa kaloo ka mid a cadamu qabuuli ducaa'ihi, ducadiisa inaan la aqbalin. qodobka saddexaad oon maanta ciwaan aanu ka dhiganayno iyo xadiidkeenna wuxuu ku saabsan yahay, waxaa asna aan ciwaan ka dhigaynaa atarhiibu shadiid min akhdi rishwati wa dafciha. yacni cabsigeliska aada iyo aada u daran oo aada laiskaga cabsigeliyey rishwo qaadashadeed iyo bixitaankeeda, inuu qofku rishwo qaatiyo laaluush, ama uu laaluush iyo rishwo bixiyo, khuduurada iyo khatartay leedahay. xadiidkeenan aanu saa ka qaadanayna cabdullah bin camr bin caas baa nabiga ka warinaya. xadiidka ta'siil ahaan waa xadiid saxiixa weeyaan. alimaamu tirmidi sunankiisu kusoo saari, kadalika abu daawuud fi sunanihi, kadalika ibnu maajah fi sunanihi. sheekh albanina 3 meeloodba iyo keyrkood uu ku saxiixinayaa. lafdigana haddaanu qaadanayno sunan tirmidi baanu kasoo qaadanay. raqamka xadiidkana sheekh albani uu ku saxiixinaya waxaa weye 1337 wey. waxaa kale oo abu daawuudna uu ku saxiixinayaa raqamka xadiidka 3580. waa isku lafdi weeye. ibnu maajahna wuxuu ku saxiixinayaa raqamka xadiidka 2313. lafdiga ibnu maajah lacnatullaahi cala araashi walmurtashi baa ku qoran, lacnatullaahi meesha halkan lacana rasuulullahi ay tahay. intaasoo dhan ba xadiidka uu kusoo arooray, waana xadiid haabita weeyaan. cabdullah bin camr bin caas radi allahu tacaala canhuma wa ardahba wuxuu leeyahay, rasuulka ayaa wuxuu yidhi, qaala wuxuu yidhi marka cabdullah bin camr bin caas ba wuxuu yidhi, lacana wuu lacnaday rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu alayhi wasalam arraashiya ka rashwada bixinhaya, laaluushka bixinhaya, iyo walmurtashiya ka cunahaya ee qaadanhaya, laaluushka qaadanhaya, labaduba nabigu waa lacnaday buu yidhi. ikhwat alislaam waliimaan, xadiidkan xadiid aada iyo aada khatar u ah weeyaan, macaanidu xumbaarsan yahay. waa xadiid mutlaqa oo waxba laguma shardiyin. imaamu tirmidi waxaa kaloo uu soo saaray lafdi kale oo min xadiid abu hurayra oo asna maaragtay 1336 xadiidka xadiid ka horeeya. isaga uu leeyahay abu hurayra, lacana rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam arraashiya walmurtashiya fi lxukmi. yani nabigu wuxuu lacnaday qofka rishwada bixiya iyo ka qaadanhaya xukunka, bimacnaa xukunkii uu dadka maamulhaya buu rishwo ku qaadanaya inuu u shaqeeyo wax qabto. xafiiskuu fadhiyey baa wuxuu leeyahay ma qabanay waxa haddaan waxaa la isiinin. marka xukunka ayuu ku qayday, kanna waa mutlaq weeyaan. ikhwati fi llahi, xadiidkan cabdullah bin camr bin caas wuxuu leeyahay rasuulku wuxuu lacnaday arraashiya weye. raashi waa ninka rishwada bixinaya, almucti weye. walmurtashiya
alaakhid weeyaan ka qaadanhaya aw alaakil ka cunahaya labaduba lacnad buu nabiga calayhi salaatu wasalaam u saaray. ikhwati filaahi, waxaanu yar dul istaagaynaa dhowr arrimood oo xadiidka ku saabsan. awalan, rishwa horta maxaa la yihahdaa? af carabiga rishwa waxaa lagu yidhahdaa wamaa yucطaa wayubdal liibطaali xaqin aw liixqaaqi baatilin. waa waxaa la bixiyo xoolo iyo dhaqaale ayaa waxaa lagu bixinayaa si xaqii meesha looga tuuro, xaqa loo burburiyo, ama baatil loo sugo. shay aana xaq ahayn oo baatila sida dhidibada loogu aaso baa xoolahan loo bixin, ama shay xaq oo jiray sidii loo baabiyaa loo bixinaya. wixii lagu bixiyaa la yihahdaa. ikhwat alislaam waliimaan, rishwadu iyo laaluushku waxaa la yihahdaa waa marad fataagoo dilaa'a oo aad iyo aad khatura oo wax uu reebi aan jirin. yaakulu lakhdar walyaabis, wax uu ka tegahay aan jirin. fardiga, shaksiga iyo mujtamaca iyo bulshada iyo dowladda uu galo waxaasoo dhan wada burburinaya rishwadu. waana waxa maanta caalam alislaami baabi'iyey weeye, wa khaasatan soomaalida baabi'iye weeye. nabiga calayhi salaatu wasalaam uu lacnaday. ma macnaa rasuulku hadalkiisa ilaahay ama uu cabdullah bin camr bin caas uu leeyahay lacana rasuulullahi sala allahu alayhi wasalam arraashiya walmurtashiya. nabigaa lacnaday. maxaa loo jeedaa? macnaheedu lacnadaas waa habaar wey, oo maxay ka dhigan tahay? daca nabiyu sala allahu alayhi wasalam bitardi min raxmat illaahi calaa man yafcalu hadihi alafcaal, wa hada yadullu calaa annaha min kabaa'ir dunuub. bimacnaa markii laleeyahay rasuulkaa lacnay, macnaheedu waxa weye rasuulkaa habaaray. wuxuu ku habaaray inay raxmadda ilaahay laga fogeeyo qofka ficilka ku dhaqma oo rishwada iyo laaluushka bixiya iyo midka qaadanaya. labaduba raxmadda ilaahay in laga fogeeyu nabigu ku habaaray. idan waa laba qof oo habaaran wey. rasuulkii nabi maxamed baa habaaray inuu ilaahay raxmaddiisa ka fogeeyo qofka laaluushka bixiya iyo qofka laaluushka qaata. labaduba inuu ilaahay raxmaddiisa ka fogeeyu nabigu ku habaaray. waxaa kale rishwadu kabaa'irta waaweyn min kabaa'ir dunuub bay ka mid tahay. kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay oo lasoo tiriyaa shirkiga ilaahay loo sharig yeelo iyo zinada iyo qatli binafsi, dulmi lagu dila iyo rishwada iyo laaluushka kabaa'irta waaweyn bay ka mid tahay. limaada? lianna mar haddii qofka lacnad uu maaragtay lagu riday ficilkuu la yimid iyo macaasida haddii lacnad keentay, macnaheedu waxa weeyaan waa kabiiro wey. intaa kadib ikhwati filaahi, mar haddaanu saa ogaanay rishwadu iyo laaluushka dhibaatada uu leh oo rasuulku u lacnaday ka laaluushka bixiya iyo midka qaadanaya labaduba malcuuniin inay yihiin, waxaanu u gudbaynaa. waxaa jira lafdi aan sugnaanin oo ay leeyihiin lacana rasuululahi sala allahu alayh wasalam arraashiya walmurtashiya iyo waraa'ish. ka rishwada bixiya, laaluushka bixiya iyo midka qaadanaya iyo midka u dhexeeya ee u kala dilaalahaya, labadooda u dhexayna isku xidhahaya. lafdiga waraa'ish waa daciif wey, laakiin min xaysu lmacnaa waxay culimmadu dhaheen asna waa kula jira dembiga. wa in kaana ay kuwan qaadanaya ka bixinaya way ka dembi wen yihiin, asna qayb buu ka yahay. ninka laaluushka bixinhaya iyo midka cunhaya qaadanhaya iyo midka u dhexeeya u kala qaadahaya, intuba waa maaha weeyaan waa macaasi bay ku wada jiraan. laakiin ka qaadanaya ka bixinhaya u daran. xadiidkana labadaasu ku soo arooray. ka u dhexdhexaynhaya waxa weeyaan asna qudhigiis waa dembiile, laakiin ayagoo kale ma gaadhayo. intaa markaan ka gudubno, waxaanu u gudbaynaa asbaabaha rishwada. laaluush in la qaato oo qofkan laaluush uu bixiyo kanna uu laaluush qaato, asbaabaha keena maxay tahay? asbaabu rishwa. laaluushka asbaabihiisa waxa keena inuu qofkan laaluush bixiyo ama kanna qaata maxaa keenaya? ko waxaa ka mid a dacfu liimaani ama dacfu aliimaani diini ama dacfu lwaasici diini. qofku hoosu dhac iimaankiisa inuu hoosu dhacay iyo dayaanadiisu. qof multazima oo baraarugsan oo iimaankiisu uu nool yahay laaluush ma bixiyo mana qaato. haddaad aragti qof laaluush bixinaya ama qof ka qaadanaya laaluush, haddaad aragti labadaa qofba iimaankoodu hoos buu u dhacay. dacfu lwaasici diini, diin ahaanna waa dad aad u liitaan wey. sababka marka qof hadduu iimaankiisu hoos u dhaco oo dacfuliimaan uu ku dhaco, macaasidii way u sahlanaanaysa. marka rishwadii saasuu ku bixin, kana saasuu ku qaadan. sababka kale ee keeni kara inuu qofku laaluush bixiyo ama uu qaato
الجهل بحكم الرشوة وأثرها السلبية أما وأثرها السلبية على الفرد والمجتمع إنه قفك جاهل كيهي رشوة حكم كذا وحي تهي iyo saamaynta xun ay ku leedahay shakhsiga iyo ummadaba ay ku leedahay inuu jaahil ka yahay oo sa aqoonba u lahayn ayadna asbaabaha uu qofku u qaadanayo ama uu ku bixinayo kamid tahay asbaabaha rishwada iyo laaluushka inuu qofku bixiyo ama uu qaato keena waxaa kamid a dacfu riqaaba inuu qofkii ay daciif ay noqoto yacni maamulkii jiray iyo haykalkii dawliga ahaa iyo nidaamkii wax kala maamulahayay iyo dabagalka ku samaynaya iyo kontaroolka hoos u dhac ku yimaada qofku nidaamku ku hoos nool yahay nidaam jilicsan oo dabagal iyo cuquubo iyo wax midnaba lahayn hadduu yahay asbaabaha waxay kamid tahay qofku ku dhiirigelinayo inuu laaluush bixiyo ama uu laaluush qaato laana wax xukuumada uu ka cabsanahay male marka saa darteed waxay dhahan iyo mutaabac uu ka baqi male saa darteed waxay dhahan qofku hadduu muraaqabatullaahi ilaahay ilaalintiisa inuu ilaahay u jeedo hadduu mar ka cabsanayn muraaqabadii nidaamkii jiray iyo cuquubana uu ka baqaynin wax markaa celinaya male qodob kale markaa saddexaad oo asbaabaha ku xumbaaraya ama afraad asbaabaha ku xumbaaraya waxaa kamid a waxa la yidhaahdo kathratu damac iyo walinqimaasi fi dunya inuu qofku aad addunya jacaylka iyo damaca iyo maarata waxyaabaha adduunyada ku fogaanshaheeda xubbigeeda jiidasho ay jiidashay darteed inuu laaluushka u bixiyo ama uu laaluushka u qaato addunya jacayl darti waa waxyaabaha keenayay kamid tahay inuu laaluushu bixiyo dhinaca kale inta haddaan halkaa kaga baxno dhinaca kale aahaarta xun iyo raadka saamaynta xun ee shaksiga iyo mujtamaca dhanba ay ku yeelanayso laaluush la bixiyey iyo laaluush la qaatay ko waxaa kamid a dacfiga iimaaniga aan soo sheegnay mujtamaca laaluush ka qaata ama bixiya waxaa ku dhacahaya iimaankoodii diiniga ahaa aad iyo aad buu u daciifaya raadkay ku reebaya kama qofka markuu laaluush cuno yahay ama laaluush bixiye u yahay diintoodu way baaba'aysaa way burburaysaa diin meesha kama jirayso qofkaa diin ma yeelanayo idan iimaankoodii iyo diinigoodii iyo waxoodii oo dhan baa baaba'ayo hoos u dhacaya waxaa kale oo aathaar ay ku reebaysaa qiyamkii tadmiiru lqiyam alakhlaaqiya qiyamkii akhlaaqiga ahaa ee qiimaha badnaa ama xishoodkii ama xaaraamtii oo laga fogaado iyo wixii oo dhan baa baaba'aya eber dhahaya lilmujtamac mujtamacii waxaa ku yaraanaya oo ku baabi'i akhlaaqdii ficneed ilaaliskeedii iyo xishoodkii iyo xaaraamka fogaanshaheedii wixii oo dhan baa baaba'aya laaluush la qaatay ama la bixiyey mujtamac uu ku bato akhlaaqdii oo dhan baa baaba'aysa eber dhahaysa waxaa kale qodobka kale ee saddexaad oo aathaartay ku reebaysaa kamid tahay faqdu thiqati bayna almujtamac mujtamaca dhexdiisa waxaa dhumaysa kalsoonidii ninkii laaluush ka qaatay ninkuu shalay ka qaatay kuma kalsoonaanayo kii laaluushka bixiyey kii shalay siiyana ku kalsoonaan maayo leanna wax kalsooni isu soo jiida ma jirta xoolay kala qaateen idan ninka kale ku kalsoon ma jirto fuqdaanu thiqati bayna almujtamac mujtamacii dhexdiisii waxaa dhumaysa kalsoonidii mujtamacu isku lahaa qodob kale afraad oo aathaarta iyo raadka xun ay keenaysa waxaa kamid a intishaaru alxiqdi walkaraahiyati fi lmujtamac buqdi isnacayb iyo xasad iyo cuqdad iyo karaahiyo mujtamaca dhexdiisa ku beermaysa maxaa yeeley mujtamacu mar hadduu laaluush cuno oo laaluush uu bixiyo mujtamac isnacab buu noqonaya cuqdad iyo xiqdi isu qaadahaya karaahiye dhexdooda ay taallo qodob kale shanaad oo saamaynta ay ku yeelaan waxaa kamid a isnaadu lamri ilaa gayri ahlihi in maamulkii qof aana ehel ahayn in gacanta loo geliyo limaada lianna qofkan laaluushka bixinaya oo ama jaga raadsanaya ama shaqo in la siiyo raba mu'ahalnimo iyo waxuu mutay ma ahee xoolo ayuu ku qaatay xooluu bixiyey saa darteed baa kursigii lagu siiyey xooluu bixiyey saa darteed baa shaqadii lagu siiyey xooluu bixiyey saa darteed baa meesha lagu geeyey looma fiirinin kartidiisa iyo mu'ahal inuu u yahay oo munaasab u yahay saa darteed waxaa ka dhalanaysa maamulkii iyo xuquuqdii oo cid aana ehel ahayn gacanta loo geliyey waxaa kaloo ka dhalanaysa waxa la yidhaahdo waxaa dhacaya khalkhal amni ah ayaa mujtamacii ka dhexdhacaya mujtamaca uu ku badan yahay laaluushku uu ku badan yahay amnigoodu khatar buu ku jiraa leanna qofka loo xil saaray amniga inuu sugo laaluush baa la siin waxba kama gelin markaa khalkhal amni ah
ayaa gelahaya. waxaa kaloo gelahaya oo maarta ka ratimi waxa la yidhaha tafakuk, xukuumadii jirtay iyo maamulkii jiray iyo mujtamacii dhannaa inuu kala burburo oo hay-adda kale la shaqaysa ayna jirin, hay-ad kale aaminaysana ayna jirin. waxaa kaloo ka dhalanhaya ihdaaru amwaali lmuslimiin, muslimiinta xoolahoodii oo la beeldareeyo iyo tacarud ay khatar ay galaan. xoolihii ninka loo dhiibay shaqadii inuu ku qabtay kontraktigii la siiyey ama shaqadii ay dowladda u egmatay ee dhaqaalaha loogu dhiibay inuu qabto, inuu dhaqaalihii jaabka iska gashado ama meel kale ku baxo, markaa deedna shaqadiina uusan qumaati u qabanin. yani shaqo inuu qabto darteed haddii laaluush lagu siiyey, idan lacagta xoolihiina wuu cuni, wax shaqo uu qabanhayana ma jiro. idan xoolihiina dayaac baa dhacahaya oo bilaash baa lagu cunahayaa, shaqo dadka loo qabanna ma jirto. ama wuu u hoosaasinoo waxaana shaqo ahayn oo magac u yaalo dadka u samaynaya, markaa khatar buu gelinaya. waxyaabahaasoo dhan iqtisaad, dacfu liqtisaad ayaa dhacaya oo iqtisaadkii mujtamaca oo dhan baa baaba'ahaya mar hadduu laaluush iyo maarata rishwa qaadasho ay meeshii timaado. hay-adihii dowladda oo dhanna way wada baaba'ahayaan, wax shaqadiisa si loogu talagalay ooga soo baxayana ma jirto. intaasoo marad ayay wadataa laaluushka la qaadanayo iyo rishwada iyo waxa la bixinayo, wax la kala qaadanayo. idan ikhwati fillahi waa marad caalam alislaami maanta aad iyo aad ugu faafay, waa khaasatan soomaalidana ku badan. waxaa kaloo aahaartiisa kamid a inuu qofkii macruuf shaygii u noqdoba. idaa takarara almacruuf maarata idaa takarara almunkaru saara macruufa, munkarku markuu in badan kugu soo noqnoqdo macruuf buu isu bedel, wanaag buu isu bedeli. idan qofkii markuu ku dhasho muasaso iyo nidaam laaluush qaadata ama laaluush la siiyo, markii dambe waxbaba u arkima inay dhib tahayba uma arkahayo, wax dhibaato ay u arkayaba markaa ma jirto. idan waxyaabahaasoo dhanba ikhwati fillaahi ayuu keenayaa laaluushka la cuno iyo laaluushka la bixiyo. maradka ugu khatartan ee maanta muslimiinta haysta inuu kamid yahay, khaasatan soomaalida. ilaahay subxaana wa tacaala reer banu israa'iil laba sifo oo xunxun uu ku dhaleeceeyey buu laaluushku ka mid yahay. suuratu maarata maa'ida ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku sheegay reer banu israiil markuu ka hadlayay samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti baa ilaahay subxaana wa tacaala yidhi. kuwa beenta aad u maqla weeyaan, laaluushkana aad u cuna. xasanulbasri taabiciga jaliilka iyo saciid binu jubayr labadooduba akaaluuna lisuxti waxay ku fasireen huwa arishwat weeyaan bidheen, waa laaluush weeye, laaluush cunitaan wey. reer banu israa'iil buu ilaahay wuxuu ku caayay niman beenta aad u dhegaystana weeyaan, rishwadana aad u cuna weye, ama xaaraamta aad u cuna weye. idan rishwada qaadashadeeda iyo cunitaankeedu waa min sifaat alyahuud wey, waana arrin khatara weeyaan. weligeedba magacyo kale ha loo bixiyo, yaana laaluushba la dhihinba, hal yidhaahdo waa khidmo iyo shaquu iisoo qabtay iyo anaa kuu gartay iyo waxa weeyaan waa gaarigaada shidaalkiisi iyo waa qadadaada maanta weeyaan iyo waxii doono ha loogu magac daro. yacni musamayaadka iyo magacyo la bixiyey ma bedelahayo, xukunka ma bedelahayo. hadda khamriga hadaad u bixisay caano cad iyo biyo macaan iyo shah la cabi iyo juus la cabi haddaad u bixisay khamrigii, miyuu xukunkeeda isbedelahaya? waa maya wey. idan rishwadii iyo laaluushka magaca doonta u bixi. haddaad doonta waxaad tiraahdaa caanaha cadee la cabhaya dheh, biyo juusoo macaan dheh, waxaad tirahdaa shidaalkaadi weeyaan dheh, anaa ku siiyey dheh, waxaad doonta waa khidmadaadi dheh, waxaad doonta ugu magacdar, waxaad doonta ugu magacdar. idan rishwo waa rishwo, laaluushna waa un laaluush weeye. sidoo kale cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay athar dabaraani iyo keyrkii ay soo saareen culamada sanadkooda ay saxiixinayaan. cabdullahi bin mascuud wuxuu leeyahay arishwatu fi lxaakimi kufrun weeyaan buu leeyahay. cabdullahi bin saasuu leeyahay arishwatu fi lxaakimi kufrun wa fi nnaasi suxtun weeyaan buu leeyahay. xukunka oo rishwo lagu bixi, xaakimka oo rishwo qaata waa gaalnimo weeyaan. dadka caadiga oona xukun hayninna waa suxti iyo booli bay noqonaysaa buu leeyahay. marka arrintaasoo dhan waxaasoo dhan waxay keenaysaa khuduurada iyo khatarta ay leedahay laaluushka la bixinayo iyo laaluushka la qaadanayo. qofka hadduu maamul hayana wuuba ka sii daran yahayba, maamulka loo idmaday hadduu haddana laaluush kusii qaato aad iyo aad bay khatar u tahay. marka soomaaliya waxyaabaha ay ku halaagsantay laaluush la qaadanayo iyo laaluush la bixinayo, ooba laga dhigay laaluushka la bixiyo ama laaluush la qaato nolosha caadigaa lagala mid dhigay. mar hadduu sharku uu noocaa noqdana halaag baa meesha ku jira. aad iyo aad bay khatar u tahay. ilaahay subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa biasmaa lxusna wa sifaat alculaa inuu xaqa na tusa nagu nitaaqa xaqa raacitaankiisa. qof kastoo muslim ahow oo soomaali ahow,
rishwada iyo laaluushka khatar weyn. waxaan rabaa inaan baraarujiyo oo kale rishwada iyo laaluushka in la bixiyo marmar bay min baabi daruura ay banaanaanaysaa culimmadu ay soo reebeen. waa goorma? waa goorta xaq adu aad lahayd lagu diido si kale ood xaqaa ku helin ayna jirin ilaa inaad wax bixisi mooyaan. taasoo kale inaad bixisa way kuu bannaan tahay, laakiin ninka qaadanaya xaaraan bay ku tahay. waxaa kaloo bannaan bay dheheen dulmi iyo dhibaato adi naftaada loo geysanayo ama xoolahaada loo geysan ama ehelkaada loo geysan haddaad iskaga difaacdood xoola ku bixisi ayadna way kuu bannaan tahay, laakiin ka qaadanaya xaaraan bay ku tahay wey. addaafic way u bannaan tahay rishwada ninkaas ka, laakiin alaakhid waa mamnuuc bay ka tahay. bimacnaa naftaadii baad ku difaacday oo dhibaato laguu geysan lahaa baad iskaga riixday oo laaluush ku bixiso, saasaa lagugu daayey. ama ma ahe xaq aad lahayd baa lagu diiday, si kalood ku qaadan kartina male. inaad xajidi baa rabtaa, tusaale ahaan basaboor baa rabtaa inaad qaadatay, xaqna waxaad u leedahay inaad basaboor qaadatay, waa lagu diiday. inaad waxaa bixisay mooyaan lagu siin mahayaa lagu. inaad basaboorka si aad u heshay aad bixisay way kuu bannaantay, laakiin ka qaadanaya xaaraam ku tahay. marka masaladaas ay culimmadu ka soo reebaan, xaq aad leedahay haddaad ku xaqiijinaysa oo si kaloo lagu helayana aana jirin, ama dulmi kugu soo socday dhibaato kugu soo socdaa iskaga reebaysi, way bannaan tahay bay dheheen ka bixinaya, laakiin ka qaadanaya xaaraan bay ku tahay. ka qaadanaya xaaraan bay ku tahay. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية كالرشوة بحينها يلالوش كبحينها النبي قال لعنضي والمارت والمرتشية كقاضنها يا النبي قال لعنضي. رواية ابن ماجه وحولها عبد الله بن عمرو بن العاص رسولك وحولي لعنة الله على الراشي والمرتشي. لعنة ربها كل عضو نك الرشوة بحينها يلالوش كيمتك قاضنها لعنة ربها كل عضو. لفظ قاسا ابن ماجه كصاروري. إذن رسولك لعنضي إلهي بقى لعنضي رسولك سنة وول لعنضي لبضوا وحاول لعنة دودي ويسوغنتهاي إني ملعونيين كالرشوة بحينها يمتك قاضنها يلالوش كقاضنها يكبحينها إني ملعونيين لبضوا لعنة إلهي لعنة رسول بقى لبضوا بقى كل عيسو بين نصوص نص ويسا. إذا ميل لتشوغا بقى هل إسكا إلالي وحيابها بين اللي سوو شيغي oo loo dhihi shaqo si kale ku helmatirtada waxa bixinin iyo wixii ku saabsan oo dhan niman yahow hal iska ilaaliya. man taraka shay'an lillahi awadahu Allah. ilaahi darti ninka shayga ooga tagay cabsi ilaahi ba bedel khayr qaba siinay. hal marba xadiidka ku celinaya الحديث 412 عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية. رواه الترمذي وابن ماجه وابو داود والحديث صحيح. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.